Who was victim number 10? That was Saidi Matambwe. saacadu waa 5tii galabnimo. Saidi Natambwe iyo xaaskiisa Gini waxay macsalaameen xaaskii kale ee Saidi Nambuwanki. inta badan dadka halkan daga waa muslimiin beeraley ah. intooda badan waxa ay qabaan laba xaas. Nambuwaki waxay gashay gurigeedii. Saidi wuxuu go'aansaday inuu ilaaliyo beertiisa ilaa cadceeda ka dhacdo. inta badan dadka dariskiisa ahaa Saidi waxay isaga qaxeen deegaanka ayagoo u gudbay dhanka kale waqooyiga wabiga ayagoo doorbiday in ay halkaasi nabad tahay. laakiin Saidi iyo in yar ma ahee waxay go'aansadeen inay iska joogaan meeshoodii. cadceedii markay dhacday qof waliba gurigiisii ayuu galay mana jirin qof baranka soo aaday. Saambili tulivolala qiyaastii 8 fiidnimo waxaan maqlay qayladii xaaskii labaad oo ay leedahay anigu waa dhintay. waxaan ka soo kiciyay ninkayga waxaan ku iri maqal waa qayladii Nambuwanki. Saidi waxa uu ka soo kacay hurdadii waxa uu ku soo baraarugay qaylada xaaskiisa kale oo aad u qaylinaysa. waxa uu u soo orday xaafadii xaaskiisa kale si uu u difaaco. Mama nakufa! Baba Mbilimbi! Mama nakufa ku! Mama nakufa! laakiin nasiib daro halkii uu filayay inay qaylida kaga baxday ee dhanka xaaskiisa gurigeeda waxaa si kadis ah gadaashiisa kaga yimid libaaxii isaga cunay. haddaba ma laga yaabaa libaaxyadan inay qiddo cusub u degeen dadka deegaanka. waxay u muuqataa taatika cusub ay libaaxyadu u adeegsadeen dadka ayagoo dadka ku ridaya cabsi aad u fara badan uguna orodsiiya guryahooda si ay ugu suurto gasho in ay ka dishaan meel nadiif ah inta ay raadinayaan gurmad. mise libaaxyadu waxay dadka u degeen qiddo cusub oo ah sida xoolaha kale ay u dishaan. sida guud ahaan dugaagta wax cunta ee libaaxyadanu ku jiro waxay cabsi geliyaan xoolaha tirada badan si ay argagax u geliyaan oo mid waliba meel ugu ordo kadibna ay u dishaan midkii dhankooda u soo orda. waxaa laga yaabaa in sidaasi oo kale in ay u adeegsadeen Saidi markii uu islahaa xaaskiisa badbaadi isagoo ay dileen. haddaba halkan ma jiraa qof aamin ah. halkee ayay noqon doontaa weerarka xiga kan? subaxii xiga ee weerarka u dhacay Ranja Haji Makanguri waxa uu helay qayb ka mid ah raqdii Saidi. baaritaankan waxa uu daaha ka qaaday arrin aad muhiim u ah. waxaa hortiisa qariyay caws aad u dhaadheer. waxuuna u gartay in ay inta badan libaaxyadu aysan ka tegin ilaa ay ka dhamaystaan wixii ay disheen. laakiin in uu helo libaaxan dhibkaan geystay kuma qaadan waqti badan. haddaba ma la dilay libaaxii caadaystay cunista dadka hilibkiisa. waxaa caddaatay inay libaaxadan ahayd mid qaangaar ah oo 4 carruur ah ku sitay caloosha. baaritaanka wuxuu xaqiijinayaa inay xaaladdu tahay mid ka sii dartay maxaa yeelay libaaxyada ma rimaan ilaa haddii ay kooxo ay u socon. libaaxyada goosha ah markay carruur dhalaan ama ay riman yihiin intooda badan waxay iskula socdaan kooxo goolal ah waxaana kooxdaasi ka mas'uul ah ama ay ka amar qaataan hal aar ama hal libaax oday ah. waxayna goosha carruurteeda bartaa sida loo cuno hilibka.
haddaba soo lagama yaabo in libaaxaddan ay bartay carruurtii ay dhashay cunista hilibka dadka. gudaha Tanzania sanadihii u dhaxeeyay 1932 ilaa 1947 saddex fac ama jiil oo libaaxyo ah ayaa la soo warinayaa inay dileen 1500 oo qof kuna dileen tuulada Injebe oo meel u jirta 400 oo kiiloomitir refugee. ilaa intee ayay gooshaan cunaysay hilibka dadka imise ayay la wadaagtay kooxdeedii dhadhanka hilibka dadka iyo imise jiil oo libaaxyada carruurteeda ay bareen sida loo dilo dadka. dhimashadii goosha ama libaaxadda waa uu faafay. beeralayda waxay ku soo laabteen beerahoodii aakhirkiina waxay dareemeen nabad. laakiin nabaddii ma sii waarin waxay ahayd 8 maalin oo keliya. dhibanihii 11aad waxay noqotay hooyo da'deedu tahay 70 jir. dadka deegaanka waa ay maqlayeen qaylideedii, laakiin ma jirin qof u soo baxay badbaadinteeda. waxa kaliya ay samayn kareen ayaa ahayd inay dhegaystaan dilka qofkaas. markii ay ka soo wareegtay isbuucyo ama bil waxaa sii korortay halista dadcunnimada iyo dhibkii. haddaba dilkii libaaxadda miyaa qaldanaa mise kooxdii libaaxyada laga dilay ayaa weerar soo qaaday? jawaabtu waxay ahayd mid kadis ah. dad goobjoogayaal ah ayaa waxay sheegeen dililkii badnaa ee dhacay inuu geystay hal libaax oo keliya, ayagoo sheegay in libaaxaasi qoorta uu ka dhaawacan yahay, waxaana ay ku magacaabeen libaaxaasi Usaama, ninka adduunyada ugu argagixiso badan maqalkiisa. waa sida ay iyaga dhaheen. Ranja Haji Makanguri waxa uu bilaabay in libaaxyada uu raadiyo habeen ka habeen iyo maalin ka maalin. Makanguri iyo dadka deegaanka waxay bil gudaheed ku dileen ku dhawaad 10 libaax, laakiin wali waxaa sii socota dhimashada dadka. Makanguri iyo kooxdiisii habeenada qaar waxay aad u howlgalayeen. nasiib daro waxay subaxdii maqlayeen inay libaaxyada ugu yaraan dileen hal qof meel u jirta 100 mitir meesha ay iyaga joogaan. libaaxyada dad cunka ah ee refugee waxay u muuqdaan kuwo aan la celin karin. dhibaatada dhimashada waxa ay saamaysay tuulo waliba oo meesha ku taal. sanad gudihiis waxaa dhintay 42 qof, laakiin xaaladdu waxay u muuqataa mid sii siyaadaysa dhibkeeda. libaaxii waxa uu bilaabay in uu dego qido cusub oo aysan qofna kaga nabadgelayn meel walba ay galaan. Faadumo Magayla waxa ay halkan u timid in ay soo booqato hooyadeed iyo aabaheed, waxayna ka soo booqatay tuulo ay daris yihiin Kibawe. Faadumo 15 bilood ka hor waxay aragtay libaax dilaya ninkeeda. intii aysan cadceedu dhicin waxay la wadaagtay reerkeeda casho, waxayna ka wada sheekaysteen dhacdooyinkii libaaxa ee dhawaanahan. Faadumo waxay tiri, cashadii kadib waxaan wada galnay guriga si aan u seexano. waxaan hurday hurdo dheer, laakiin si kadis ah waxaan maqlay hooyaday oo qaylinaysa. waxaa halkaa yimid raggii baarista waday Dennis Akenda iyo Harunu Laimu si ay u ogaadaan weerarkii ugu dambeeyay ee ka dhacay halkan. Faadumo iyo reerkeedii waxay ahaayeen kuwo aad u adkeeya guriga dhismihiisa, laakiin calaamadaha halkan ka muuqda waxay ku tusinayaan in libaaxu uu sameeyay wax aan caadi ahayn iyo sida uu gudaha u soo galay. Using its hind legs, it pushed its way up and then placed its right hind leg here.
and then it managed to pull itself and actually stand at this particular point. libaaxa dadka cuna wuxuu koray meel 3 mitir dhirirkeedu yahay kadibna waxa uu guriga ka soo galay halka kore Faadumo iyo reerkeedii waxa ay jifeen meel aad u sareysa libaaxuna wuxuu ogaa in ay ku jiraan halkaasi When the lion got here, libaaxa markii uu halkan yimid waxa uu maqlay neeftooda ama xuuradooda waxa ay jiifeen qaybta sare ee guriga intii ay jiifan lahaayeen qaybta hoose ila baba ameponzeka nini kuinuka aabahay wuxuu u istaagay inuu badbaadiyo hooyaday libaaxina markii uu arkay inuu la dagaalamayo aabahay waxa uu dhunta ka qabtay aabahay oo dilay kadibna wuxuu kaga tagay aabahay halka wuxuuna uu qaatay oo gogoostay hooyaday Faadumo waalidkeedu waa ay dhinteen laakiin maxaa sababay in ay iyada badbaado waxaan ahaa mid aamusan aad ayaan u cabsaday oo waan wada gariiray ma aanan ooynin marnaba waxaan gartay haddii aan qayliyo inuu aniguna igu darayo intii lagu gudan jiray xaaladii naxdinta lahayd oo ay aragtay Faadumo waxay garatay in uu alla badbaadiyay waxay u soo taagneed weerar kale oo ay ninkeedii libaaxa laf ahaantiisa uu u geystay waxay aragtay isaga oo dilaya ninkeeda sida ay u aragtay reerkoodii uu dilayo libaaxan dadkii deganaa refuji waxay isaga tageen halkan intii soo hartay ee beeralayda ahayd waxay u carareen dhanka kale ee wabiga si ay ugu fogaadaan libaaxan dadcunka ah halkan ayagu waxa ay moodeen in ay ku nabadgalayaan laakiin ilayn qalad ayay dhaxda kaga jiraan maxaa yeelay weligood ma aysan arkin libaax ka soo talaabi kara wabiga oo dabaal yaqaan